tobankii biloodaan xilka hayay maanta igu farxad badan tahay waxaa midigtayda fadhiyay Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam madaxdana waxaa iga fadhiyay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi maalintii xilka la dhaariyay suldaanka iyo ugaasku dalka way ka maqnaayeen maantana waxaan ku faraxsanahay inay hareerahayga joogaan munaasabadan qaaliga ee weyna ay dhinac fadhiyaan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan si guud Suldaan Siciid iyo beesha Warsangeli salaadiintooda cuqaashooda haldoorkooda ergadooda tii farsame ee Siciid Midaar hogaaminayay iyo ergadii 200 ka badnayd ee marka timi ee u timi shirka nabadda waxay tusinaysaa arrintaas in Somaliland nabadeedina sugan tahay dadkeeduna isu dhan yahay bari galbeed dhex sanaag iyo guud ahaanba Somaliland waxaan uga sheegayaa nabadeeda ku dhawaaqay maalintii xilka la dhaariyay tobanka biloodna waxaan mudnaanta koowaad siinay nabadda iyo midnimada iyo walaalnimada shacbiga reer Somaliland sida uu sheegayo gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiiladu bishii koowaad duruufaha jiray awgeed ayaanu halkan u soo diray gudidaasi warbixin bay keeneen waxyaabaha ay soo jeediyeen nabadda ugu horreysay loo soo celiyo gobolka Sanaag laba arrimood oo ugu muhiimsanaa labadaba xukuumad ahaan waxaanu qaadanay inaanu fulino mid wuxuu ahaa qaramaynta ciidamada abadaniga ahaa oo ciidan badan oo dhalinyaro ah oo fara badan oo duruufihii dagaaladii ka dhacay dalka ka abuurmay taasaana keentay maanta inaynu nabad ku wada joogno oo tog dheer nabad yahay oo sool nabad tahay oo Sanaag nabad tahay nabada ugu dhamayna qaramayn waxaynu qaramaynay waxay hubsiteen fara badan oo laga yaabo ka ciidamadu haystaan in laagay wateen baasna la qaramay arinta labaad waxay ahayd arintii nabadeynta ceelaf weyn oo runtii dadaal badan shacbiga iyo salaadiinta iyo madaxda dhaqanka iyo xukuumadii horeba ay ku dadaaleen laakiin wali qabiyo ahayd odayaashii galay ee iyaguna muddada fadhiyay qaramaynta iyo ceelaf weyn marka la isku daro ilaa 4 bilood bay qaateen madaxweyne ku-xigeenkan u soo diray iyo rag badan oo halkan maanta waa fadhiya oo wasiir leh oo xildhibaan leh labada aqalba iyo madax dhaqameed iyo odayaal 4 bilood in ka badan bay u dhabardaygeen ilaahayna uu ku guuleeyay arinta saddexaad ee Sanaag 10 bilood waxay nabadda iyo gogasha aynu u dhignay Sanaag iyaduna may suurta gasheen haddaan laga wada shaqayn may suurta gasheen haddaan Suldaan Siciid iyo madaxdiisa dhaqanka iyo salaadiintiisa iyo cuqaashiisu aanay 100% waqtigooda iyo dadaalkooda aanay gelin waanu ka wada soconay laakiin waxaan uga mahadnaqayaa maanta inuu joogo Suldaan Siciid oo aynu soo gunaanadayno shirkii nabadda
sanaag ama degmada Cergaabo ayaa loo dhigay nabadda reer gaara looma dhigin qodina Leeyahay Axmed anafkaba ku dhuftay Cergaabo way sugaysaa أنا وسوية Somaliland way sugaysaa مراحل قلبات بقى يترنسن لكن وحلا جاي وعدي يجي قرابة بضري لا لي أحمد دينان تشرين سيدي دين المفتي دين صدوهين ولا يوسويه على القيم بالي كسور وينيه قوشي ما لابنا ويتعالى قوش هو أفر يلا أعطيك ساعات ويفرض وهنو مهضنا قيا قديدي شقي وهنو مهضنا هيا قدهان شعبي غير سناك وقاعد سيني قديداس شغل كستولا قبطاوة أضيق بين هذا لكن دبر أضيق بالك قبح مركا ينو دبر أضيقين قديدي سعيد رقاميني قديدي عثمان رقاميني إيه مدحضة نقكا إيه مدحضة حكومة كل دول قديدي النوضة حلبانة المسؤولين ته مدحضة قبل كبر صاحب كيميرك قال هالديجان كه عادي أدبر ومخضعية جودهان أدوك حسكوا في عسني هاي إن بضو أي تاي سيس كنواش لا أنت يدي دولة الدمو أنا دسمينين وأنا صلوته أنا مدنان تكوّدوا سيني حكومة دهان إن نبض مركز الله وحي كلا أي هوليهين إلا صغير نبض معها إن أنا يدقى الله يعلى دي شرين وكلية وهكذا لنا يا نبض وتصير كيدو مهم سن مركز نبض لهلا إن عدالة لهلا إن مامل وناكسن لهلا إن إسكاش لهلا إن كالسوني ومضغ سهشو دولة ديدنا وهشو وهنا هم المسلمين دين تينا مقعد والنبض وإسلام السلام سلامتين والنبض هو السلام عليكم دعاء وأمني إيمان مبادئ الإسلام إن برايعية وذا شركة وذا نولاشيها الصدقات هي سنة حريش الصدق لكن أنت أصلا إنه روب كوينو داية إلى هاي اللي معاه وينو صارية هرمركة هي مشاريع اللي دوينا ويمنيا مالقش ويمنيا الشركة قال ربع يمين مكة ومالقش السمية ورمضنا غينا عيد مالقش السميسي لكن احنا بقى شروط مالقش جنا إلا فضليه نظامنا الله سميه دافرنا عن نيجرت وهي خيراتك ضدك عليه ضدك وين كيف إذا خيراتك ولا ليال ثاني شيء سناك واحد الفرنسيين إنه هي قبل كوكو قنيسان سوماليلاند حاجة ديجان كي عملته يدرحيس كما كان لا يجو قبل كوكو قرح البضن لكن واحد نوبة هناي ما أنت هذه النمط نوح رانتاي كو هرتين يسود السامحنا ليس سامحنا أنا عندي وحي هي سامحنا مركا يسود السامحنا خير كل وصوب ضنيا وحنوبة هناي
وحين قبياه إنه قبية الروح وحق قبياه إنكتي قدية وسيفة قدية النبضة salaadiinta kuwa gobolka kuwa martida inooga yimi gobolada kale waxaan farayaa in wixii qabiya xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay idin la qabiyo tirto waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo fududeysay waxaa ilaahay ugu rajaynayaa una baryayaa inuu cid kasta oo wanaag samaysay khayr ugu bedelo ميزانك حسنات كودنا وقدره وحنو مهضنقيا صاحبكي مدحوين السيد عبد الله الدني إمام بوتبوتلان دور كاكي قاتين دي رجلينتا هي النبضينتا قول كستناج أو كمية هي شركة ناينو فرنا غير سناجو أو سودان سعيد هجامين أيوه ما تطلعوا إذا كيدي تعالى وين إنه حكومة ذهان هي الشعب أهم بقى مدان تكواسينا نبضة ولا لماذا هي وضع نوراشيها نحدين نبضة كذب حكومة وذا تشري وحقبض وهي وقتي يأدون بوهلي دونتا هرمارين تقبلك مالقشية وحن بلغ هذا إن إلو هلي مالقشي قبلك وقني كوا بضة وقني كوا بيرها وقني كوا حولها وقني كوا معدنته وحن الرميسية قبلك إنه سومين لا تكفي لي هي مكبدية إن معدة الله هذا يسوي نفسه نقش قيسنا قبلك نحن نقضنا قبلك الله سو شغطه يجي أوض الباء معدن بدن باكوشرته خيرات بدن باكوشر وهلا جيابه إلهي هدو ينقسمه لبصد أحسن كذب إنك في سيال بين فاتش إن أبدأ بيا الله بتوجه سعودي إن هالك الله صار شغلته بعد الله خير سومالي الآن وهذا اللي يقولوا قاعدين هي ديمقراطية ده هي النبض ده وعلى بدأ يقول مهم سن هذين اللي بدأ حوش إنه اعتراف كانوا هو منايا وكيف يقول أسكر خدعي أنا واحد رميس نحي إنه سودوي هاي ما له ولا كهذا يميل بانكوري ولا ذا طيلس عرض سومالا ولا قوسنا هكا حالنا iyagana waxaan leeyahay Awroba baash way soo dhawaatay sida ka warqabtaan 17kii May maalin ka hor 18kii May waxaan 193 warqadood u diray hogaamiyaasha dunida oo isugu jira boqorro oo isugu jira madaxweynayaal oo isugu jira ra'iisul wasaareyaal dabagalna waa ku sameeyay hawshaas waxaan ku kalsoonahay in Somaliland dadka u garaawaya ama dawladaha u garaawaya ay maalinba soo kordhiyeen haddaynu nabadana xoojino wada jirkeena xoojino اعترافك iyo horumarka aniga ii daaya waan ku tagay safarro dalka Imaaraadka iyo dalka Itoobiya labadaba waxaynu nahay labada dalba saaxiibo dhow waxaanay booqashadeedu ku soo dhamaatay iyo wada hadalka iyagu guud ahaan safgarad iyo inuu sii kordho siina xoogaysto iskaashigeena dhinaca ganacsiga dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca siyaasadda waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga oo subadna uga dhigaya in nabaddu ay ka mid tahay
shaqooyinka aanay dawladuhu kaligood fulin kareen nabaddu gunta ayay ka soo tolantaa sidaa awgeed ma hirgasho haddii aanay qofka ama qoyska iyo bulshadu ka soo unkamin iyaguna aanay ilaalin marka waxa heshiiska aynu gaadhnay nabadda aynu unugnay waa inaynu dhaadhicinaa waa inay guri walba gaadhaa oo ninka adhiga la jooga loo sheegaa ka dukaanka haysta waa in loo sheegaa ka siyaasigaa waa in loo sheegaa ka wadaadkaa waa in loo sheegaa ka daydaygaa laftigiisa waa in loo sheegaa in heshiis dhacay oo la nabday markaasubay dee nabaddu inoo hagaagaysa sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta gogasha soo xidho sidaan sheegayna waxaanu diyaar u nahay wixii qabiyaa ee xukuumad ahaan inay gacan weyn ka geysato inay amniga sugto amniga muwaadinku xukuumaddu saaran yihin xukuumadda ka mas-uula marka waxaanu doonaynaa un shacbigu inay gacanna siiyaan laakiin amniga waanu sugaynaa waxaan rumaysan inaanu ku filan nahay amniga inaanu sugno nabadda waxaynu uga gudbaynaa talo wada jir ah oo aynu kaga arrinsanayno horumarka iyo dhismaha gobolka iyo magaalada waxaan farayaa badho saabka iyo maamulka degmadaba in qorshaha nabadeynta iyo walaaleynta ay gacanta ku hayaan oo sii wadaan haddii alla yidhaahdo ciddina looga baahdo ragga shaqaynaya inay ku hadhaan ama guddiyadii aanu soo dirnay ha noqdo ama mas-uuliyiinta golaha xildhibaanada golaha guurtida iyo wakiilada ha noqdaan nasiib wanaag labadii guddoomiye waxayma way nala joogaan labada aqal oo labaduba ka soo jeeda sanaag anigu waxaan isleeyahay waktigaygii badnaa gobolka intaan geliyey sanaag gobol aan geliyey ma jiro